Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhammaan walaalaheyga waa idinka salaamay. Bulshadana maashaAllah cake ayaa sameynaya. Waa laba xabo oo la iskor saari waaye. Midna waa red camal, midna waa mid caadiga ayaan ka dhigay. Marka sida u sameynayna isla arkeena. Waatana maashaAllah way ii dubneeday. Marka kareemki iyo sidaan u marinayo habka sidaan u sameynayo ayaa idinla qaybsanayo. Bulshada anigoo karinayo cake way ku jirtaa channel kayga dib u raac waa arkaysa inshaAllah. Inta maxaa ku shubanayaa koobkaas iyo nuskiisa. Whipping cream ka isticmaalayna waa kana. Marka halahan ayaan ku shubaya aragtaan koobkaasana u buuxo. Koobkaas oo buuxo iyo asiga oo bar ayaan ku darayaa. Hadda kaasa koobkii ayaa ku gediye baaquligii. Hadana nuskiisa waa kaasa waa kana ku shuba aragtaan. Marka halana si fiican u shiidaya mishiinka ku shiidaya ilaa ay ka adkaanayso. Ka noqonaysa cream adag camal saan adeeg ugu dhigaa si aan hadhow bulshada aan u mariyo. Ba arkaysaan mishiinka qeyladiisana waa idinka xiray. Marka keena san ayaan u shiidaya. Sokor iyo maxaa waaye sokorta iyo whipping cream waaye. Biyo waxaas dhan laguma daraayo. Halahan ayaa maashaAllah si qadar loo shiidaya. Aragtaan sida u shiidayo. Waa kana si maashaAllah ayaa u shiidaya. Hadda wax yar ayaa u dhiman wax yar ka bacdina waan joojinayaaba. Food color ka aan isticmaalaa. Waxa kalarka gaduudka aan ugu dhigay asxaabay maxaa waaye food color waaye. In kala markaas ahaysatid ayaa isticmaali kartaa. Marka kalooradiisu way jiraan oo kala nooc oo lagu darsado. Haddii kaas ahaysanin food color isticmaal. Hadda midka isticmaalaya waa food color. Bacdaan ayaa soo qaadatay bacda cad. Hilibka waxaas lagu xirxirto. Marka waa kana 3 qaado camal ku shubaya. Waa kana marka saacadii garaad. Waa kana waa ku shuba maxaa la dhahay 3 qaado ku soo shubta bacda. Food color kii oo wax yar oo gaduud ayaan ku darayaa. Kadibna hoostaas bacda afka ka xiraa. Si fiican iskugu qasaya. Kadibna markaan qaso korka ayaan ugu sharxi rabaa halahan bacda ku shubta 3 qaado. Inta kale itana white inay ahaataa rabaa. Marka aragtaan bulshada geesaha ayaan ka jarjarayaa. Maxaa rabaa wax oo wareeg oo isla siman maashaAllah si aan kareemka geesaha meel kasta aan ugu marmariyo.
marka koobkana maxaa igugu jiro caano aan soo qasay caano booro waaye waa kala marka saar ayaa u jaraya kulli saas ayaa u jaraya wanaagsan oo isla siman hadda tan waa qaybta gaduuda qaybta kaleetana waa qayb oo caadi ah waaye kalar dhan kuma darin hadda qaybtan waan dhameeyay haddana qaybta kaleeto ayaan jarayaa maalmahan waa idinka mashquule hadda ayaan soo dhacay markaan soo noqday maasha allah halkana marka hadda qaybta kale waaye waxaan goynaayo maxaa waaye qaybtii oo kalarka lahayn waaye marka waan iskor saarayaa first inta iskor saaray caanaha ayaan marinayaa kadib caanaha markaan mariyo ayaan iskor saaraya hadda waa iskor saara waa isla simayaa waa aragtaan waa isla siman tahay maasha allah marka waa kala qaadayaa caanihii waa kana koobkii kugu jiro si maasha allah ayaan u marinayaa si hadhow kareemka markaa marinayso ayna kaaga soo foqfoqin oo ay ku soo raacin halkana marka waa markii caanihii ku dhameeyay hadana kareemkii ayaa marinaya waa aragtaa inuu adag yahay maasha allah haddii aadan kale aan heli karin maxaa ka dhigi kartaa mid oo maxaa jiro kareem oo budada ah hadda waa isoo kor saar waa aragtaan haddana korka ayaa maxaa ka marinayaa qaybtii kaleeto halkana hadda qaybtii kaleeto ayaa marinayaa maasha allah si maasha kaal iska aragteen marka waa aragtaan halkana geesaha meel kasta ayaa ka marmarinayaa halkana marka la inta kaleeto soo mari waa aragtaa maasha allah haddaa rabtid meesha binkiga aan ugu dhigo gaduudka kaasna waa geediga saacadda ku jirta oo doonaadka la mariyo kana waa bagsaysiin
magaciisa wuu iga dhumay asxaabey, laakiin qof kasta way fahmi kartaa geedkan doorshada wax lagu sharaxdo waaye. Maasha Allah geedkan nooc waaye, laakiin ma ahan strawberry maaho, waa kuwo kaleeto. Waa kana marka saan ayay kusoo baxday. Hadana qaybta kaleeto ayaa ku shubaya sharaxaada kaleeto donut-ka lagu sharaxdo. Wakaas marka Masha Allah saan ayay kusoo baxday walaalaheyga. I hope inaad ka hesheen sida u sameeyay. Anoo kala kala Masha Allah sameynayna waa soo gelinaya insha Allah. Dhammaantiin waxaan idin leeyahay waa mahadsantihiin. Jazakallahu khayr. Sida ma walbo haddii la socotiin waa ku mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.